safarka aynu ku jirno iyo inuu dhow yahay oo dheerayn inaanu dhoweyn u dheer yahay waa safarka ilaahay xaggiisa aakhira aynu ugu jirno maraaxil baynu maraynaa midka u soo horeeya waa mowdka iyo geerida qabriga ku xiga oo nabiguna xuseen sallallahu alayhi wasallam inuu yahay awwal manazil al-aakhirah riyaha aakhira ka u soo horeeya waxa ilaahay afuufi doona saddex suurood suurta horeysa waa ta lagu argagaxayo labaadna waa ta lagu dhimanayo dadka ifka markaa jooga ta saddexaadna waa lagu soo baxaya marka la soo baxo khalqiga ilaahay wuxuu isugu keenayaa ardul mahshar meel bannaan oo ugu talagalay kafadiya miisaankana u dhigaya iyadoo cadaaladda loo xaqiijinaya dadka markhaatiyadina waa imanaya maxkamaddii ilaahay oo afurmaysa waa nin iyo calafkii dadka waa la sii dareerinaya wax la marinayaa meel la yidhaahdo jidka siraad oo iyaduna aada u adag oo dadku ay ku kala duwan yihiin mid ku dhacay iyo mid ku guulaystaba dadku markay sii socdaan waxa laga cabayaa intuu ilaahay u qadaray xawlka rasuulka sala allahu calayhi wasalam shafaacadii weynaydna waa bixinayaa nebigu ilaahay buu ka ergeynayaa waxaa dhici doonta wakhtigaas inuu ilaahay soo kala saaro dadkii oo wixii naar u kacayana gaar laga dhigo wixii janno u kacayana ilaahay uu dhinac ka dhigo waxaa u horeynaya aftaxaya nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo ummaddiisu ay la socoto ay u horeeyaan fuqaraa'u lmuhaajiriin dad iyo duuye iyo dal waxay lahaayeenba alla daraaddii kuwii uga tegay asxaabtii rasuulka ee maka ka haajiray qolaba albaabba iska xaadirinaysa qola waxay ka gelayaan albaabka dadka sooman yusamaa baabu rayaan magacaasaa la yidhaahdaa dhereg iyo cokonaani ka muuqanayso qola albaabka salaada albaabka jihaadka albaabka sadaqada abubakar wuxuu leeyahy intaasoo albaabba mid looga yeedhayaa ma jira adaa ka mida buuhi haa intaasoo albaabba wuu jiraa qof looga yeedhayaa waxaanaan rajaynayaa inaad dadkaa ka mid noqoto abubakarow marka uu jannada galaya la ysku qabsan doono halkaa waxaan uga jeedaa oo khitaamkeena aynu ka dhigaynaa insha allahu ilaahay baynu janno weydiisanaynaaye jannada inaynu wax yar ka nidhaahno markaa afar xadiid oo ayna soo jiidanaya oo wada saxiixa baan wax ka soo qaadan doonaa xadiidka u horreeya nebigu wuxuu xusay sala allahu calayhi wasalam awliyada ilaahay markay jidkaa siraad dhaafaan iyo marka ay jannada galaan labadaba codsi bay qadimayaan waxay leeyihin yaa rab ina lanaa ikhwaana kaanuu yusalluuna macana wayasuumuuna macana falam narahum ilaahay waxaa jiray adduunkii dad aanu saaxiibba ahayn oo salaadda aanu wada tukan jirnay oo aanu wada soomi jirnay waxa wanaagsanna wada samayn jirnay hadda ma aragnee maye ma la haystayaalba ilaahay waxa uu leeyahay orda oo haddii jidka siraad lagu qabsadayna soo fujiya hadday naarta ku jiraan naarta ka soo saara xadiidku waa sugan yahay waa saxiix wey markaa way tegayaanoo ilaahay wuxuu leeyahy cidda garataane macrifaa lahaydeen ee saaxiibadiinaaba ka soo saara naarta marka waxay u tegayaan iyagoo sawir intii wejigu aanay gubanin oo ilaahay sujuudi iyo baaqi yeelay qaarkoodna cagaha kula jiraan naarta qaarkoodna ilaa dhudhummada holcayaan way ka soo saarayaan war hebelow ka soo bax war hebelow ka soo bax war hebelow ka soo bax haddana mar labaad buu ilaahay leeyahy ku noqda oo bal wixii macaariiftiinaa waa idinka dacwoodee ka soo saara dadka idinla tukan jira idinla soomi jira istaqaaniin haddana way ka soo saarayaan mar saddexaad buu ilaahay leeyahy dadka istaqaaniin ka soo saara man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min iimaan qofka qalbigiisa uu ku jiro wax yaroo iimaani iyagana way ka soo gurayaan halkaa waxaa ka muuqatay
inay aada u muhiimtay dadka wanaagsan iyo awliyada ilaahay mid caanah iyo mid qarsoonba in lala saaxiibo sidaa daraaddeed baa waxa uu imaamkii weynaa taabicigii jaliilka ahaa xasanu lbasr istakfiruu min asdiqaa'ikum اlmu'miniin faina lahum shafaacata yowma alqiyaama wardadii how saaxiibadiinna alla yaqaanka ah kororhsada ergey leeyihin ayaanta qiyaamaha saaxiibbadu waxay kuu qabanayaan wanaagsani wax laga yaabo ehelku inaanay kuu qabaniyo tolkaad u waalatay war saaxiibbada kororhsada buu leeyahy wanaagsan waa marka ay nimanka gaaladu barooranayaan ay leeyihiin famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiim nasiib darrada annaga nagu dhacday ma lihin wax saaxiibba ah iyo wax noo ergeeya toona ilaan ergadii shafaacadii saaxiibtinimadu waa taa shaqaysa alakhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin dadkii adduunka saaxiibka ku ahaa aada u saaxiibka ahaa dadka alla kacabsi saaxiib ku ahaa mooyaane kuwii kale col bay suyin maalinta qiyaamaha marka arrintaasi aada bay muhiim u tahay inaynu dadka wanaagsan badsanno dunyada marka laga hadlayo hebel wuxuu leeyahy anigu intaasoo gaal baan la saaxiibahay intaasoo taajir baan la saaxiibahay intaasoo ciyaal baan la saaxiibahay war saaxiibka fiicana aakhiro shaqaynaya in lala saaxiibaa muhiima oo adduunkana khayr aad kaga dayanaysaa aakhirana ergadiisa iyo shafaacadiisa aynu rajaynaynaa kuwa allah inaga dhigo wada soomi jira ee wada salaadi jira isu shafaaco qaadaya xadiiska labaad waxa weeye axaadiidta iyo aayaadka ka warramaya jannada aad bay u badan yihin maraajic iyo kutub badan baa laga ururiyo o laga qoray saddexda xadiid aynu soo qabanaynaa waa saddex xadiidoo ka warramaya badhaadhaha iyo barwaaqada halkaa yaalla ilaahay baa wuxuu dirayaa malaa'igta waxay u dhawaaqayaan ahlu jannaha afar ogeysiis bay siinayaanay u sheegayaan oon adduunkaba lagu hayn waxay leeyiin ya ahla aljanna dadkii ahlu janna ahaayo ina lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada waxaad leedihiin adduunka inaad jannada ku noolaataan oo weligiinba aydaan dhimaninba wax geeri la yidhaahdaa halkan way ka dhammaatay ma jirtaba noloshu waa joogto wa an tasixuu falaa tasqamuu abada iyo weligiin inaad caafimaad qabtaan oo wax cudur la yidhaahdaa aanu jirin boo dhakhtar loo tegaya aanu jirin iyo taah la taahaya iyo xanuunba u dhammaaday wa an tashibuu falaa tahramuu abada iyo inaad weligiin dhallinyaro ahaataan oo aydaan odayoobin ama duqoobin oday iyo cajuusadii ma jira iyo oday meesha ah waa kii nebigu ku uhi salى اllahu عalayه wasalam isagoo islaan la kaftamaya jannada islaanimo gashee la soco markay yaabtayna wuxuu uhi meelaad maqal ina anshaanahuna inshaan fajacalnahuna abkaaran curban atraaban iyagoo da-yar bay lahayd dadkii adduunyadan uu ka kaxeeye gelinaya arrinta afraadna waxa weeye waina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada waxaad leedihiin inaad barwaaqaysataan oo weligiin aydaan balaayo arag balaayooyinku way kala duwanaa faqrigaa balaayo ah oo naxdintaa balaayo ah oo warwarkaa balaayo ah ina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada nicma wixii la odhan jiray bal afartaasoo isku qoofalan baad haysataae maxaa kuwaaleed ku wareeriye hankaagii yareeye halkan aad ugu waalateed ugu gaalowdeed xaaraanaheeda u cunaysa afartaa waa geeri male oo gabow male oo cudur male oo caydh male intaasaa isku qoofala meel loo dhaafayaana ma jirto laa yabquuna canhaa xiwalan daldoorsina ma leh waa la macaansanayaa xadiidka saddexaad isaguna waxa uu sheegayaa rabbunaa subxaanahu wa tacaala wuxuu la hadlayaa ahlu jannihii oo wuxuu ihi aradiitum ma raalli noqoteen waxay dhahan sideenaan ilaahayow u raalli ahayn waqad acطaytanaa maa lam tucطi axada min khalqik adigoona siiyo wax aanad khalqigaaga qofnaba siininba ilaahay wuxuu leeyahy hal ucطiikum afdala min dalik ma idin siiyaa waxaa wax ka wanaagsan oo maxaa ka wanaagsan bay leeyihin ayu shayin afdal min dalik nicmadan iyo jannadan wax ka wanaagsan mama haynaba markaasaa ilaahay waxa uu leeyahy uxilu calaykum غadabii falaa askhطu calaykum abada waxaan idinku dejiyey ama aan idinku deeqay
inaan idinka raali noqdo oo weligayba aanan idin cadhooninba ilaa adduunka waxaynu ka warwarsannahay talow camalkaaga ma la aqbali talow ilaahay muu kuu cadhoon talow cadaab maad ka nabadgeli talow janno cagaha maad saari waxaasaynu ka cabanaynaa marnaba ma warwarliin le damaanad laynoo qaadiyo qur-aan inagu soo degaynayo allo jannanay ma jiro warkaa qaba buuha halkaa ku bogsada ilaah dambe oo idiin cadhoonaya waxaa ka warwartaan ma jiro wax lagu farxo lagu bushaaraysto wey xadiidka afraad waxa uu isaguna sheegaya malaa'igta ayaa dhawaaqaya yunaadaa liahli ljanna dadkii ahlujanna baa loo dhawaaqaya waxaa la leeyahy ina lakum cinda rabbikum mawcida yuriidu an yunjizakumuuh ilaahay wuxuu idiin sameeyey uu idiin cayimay ballan aanu ka baxayn uu doonayo inuu idiin fuliyo waa kuwa culimmadu idhaahda miisaadka jimcahay ka mid tahay ayaamuhu ilaahay awliyadiisa jannada kula kulmayuu ka mid yahay jimcuhu waxay dhahan talow maxaa dhacay ila wax walba waa helay alam yubayid wujuuhana wayuhaqil mawaasiinana alam yudkhilna aljanna wayujirna min annaar oo far arrimood baaba haynaa talow maxaa jira sawkii ilaahay wejiyadayadii iftiimiyey dharaar sawkii miisaankii noo cusleeyey soo annagan janno heleen naarka nabad gallay markaasaa fayakshifu alxijaab rabbi subxaanahu wa tacaala markaasuu istusayaa awliyadiisa maba la siininba nicmo ka qiimo badan aragtida ilaahay arkeen waa qowl llaahi tacaala liladiina axsanuu lxusnaa wa ziyaada dadkii ilaahay rumeeyey waxay leeyihin jannada wanaagga badan iyo dheeraad oo ilaahay inay jannada ku arkaan allahuma ijcalnaa min haaulaa'i ugu dambeyntii walaalayaal waxaan leeyahay safarku sidaas uu soconayaa geediguna wuu isdabahayaa wuu qaldamayaa qofka u malaynaya halkaa meel ka sokaysa in lagu warwarbeelayo ilaa aad jannada cagaha saaraysa oo warwar la-aan ma leh waxaynu cabsidana waynu qabaynaa khuduu xidraku waa feejignaanaynaa ilaahayna rajadaa weyn baynu ka qabnaa inuu camalkaa aynu qabanayno inoogu bedelo jannooyinka wacdigeennii oo laba qaybood isugu jiray qayb axkaamta ah iyo qayb raqaa'ibka ama tarqiibka iyo tarhiibka ama rawxaaniyaadka halkaasaynu kusoo afjari doonaa in sha allahu bisheedana ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inagu gaadhsiiyo nabadgeliyo iyo nolol wanaagsan oo raaxo leh dal iyo dadbana waa u ducaynaynaa inaynu isu soo ducaynana waa tahay cid kastoo inoo ixsaan samaysayna waynu u ducaynaynaa allah u aqbalo dhibka adduunka noocyada kala duwan uu leeyahayna innagiiyo dadka muslimiinta ahba allah ka dulqaado gaar ahaan walaalaheennaa lagu tooganayo masjidul aqsa ee falastiinna allah u heliyo qof kasta oo muslimahoo dhiban meel kastuu joogo china africa meel kasta allah u heliyo nasrigiisana ilaahay ha siiyo innagana aan isu soo ducayno qofba qofka ka maqane walaalkiya u soo duceeyo intaasaan kusoo koobi lahaa ilaahayna haynaga aqbalo waanay mahadsan yihiin cid kasta oo inaynu isu nimaadno oo khayrkan isku abaabulno inagala qayb qaatay hadday yihiin walaalaha ina tukinaya kuwa masaajidka inoo dhisay iyo kuwa inoo siraaday iyo dhammaanba aad baa u mahadsantihiin wataqabal allahu mina wa minkum saalix alacmaal habeen dambe dee wax la isugu yimaadaa ma jiro waa ciid